Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan sameyneynaa oo aan karineynaa canjeelo iyo hilib geel. Canjeelo iyo hilib geel oo suqaar ah. Hilibka geel maanta wuxuu ahaa sarar. Isagoo aan la jarjarin baan keenay. Kadib aniga ayaa jarjaray. Waxaan ku gurayaa digsigii. La socda. Maanta quraac weeyaan hilib geel oo suqaar ah. Iyo waxa way maantay canjeelo. Waxaan ku darayaa qudaar, basal, yaanyo, barbarooni 3 nooc ah iyo kabsar caleen iyo toon. Hadda waxaan ku bilaabay basashii iyo toontii ayaan ku daray. Barbaroonigii 3 nooc ahaa oo guduud iyo yellow ahaa aan ku daray iyo cagaar. Hadda ku daray haddana yaanyadii ayaan ku daray. Waxaan rabaa suqaar iyo canjeelo maanta in lagu quraacdo saaka in lagu quraacdo saasan dooniya. Canjeelo iyo suqaar hilib geel ah oo sarar ah. Ugu dambeyn kabsar caleenta ayaan ku daray. Waxaan kaloo ku darayaa waxyaabihii lagu dhanaanin lahaa sida cusbada, maraq kaleeto oo guduudan, xawaash, alaabooyinkaas ayaan ku daray. Kadib waxaan u noqday suqaar aad u qurux badan oo isku dhiimay ayaan ka soo saaray. Sidaas ayaan maanta quraacdu tahay. Waxaan dabka saaray birta canjeelada. Canjeeladana burkeeda waxaa laga sameeyay dhowr nooc oo digir iyo qamadi iyo waxaas ku jira. Waa 3 nooc 4 nooc marka qof walba sibu u qastaa. Maanta tan galley kuma jirto. Canjeeladan waa bur qamadi ah iyo digir bur ah iyo bur cad. Canjeeladeena ayaan dubeynaa. Sida aan jecelahay saaka quraacdu waa suqaar, hilib geel oo sarar ah iyo canjeelo way quraacda. Quraacdii canjeeladii ayaan dubideedii wadaa iyo hawsheedii ayaan hadda ku jiraa. La socda asxaabey. La socda canjeelada maanta iyo suqaarka hilibka geela. Suqaarka hilib geelan soo diyaariyay iyo canjeeladii intaas ayaan ku dhameeyay. Waxaa la rabaa inaad si aan u soo badiyo aad saartaan subscribe-ka iyo like. Maca salaama.